ogaadeenga iyo gumaadka uu gumaysigu u geystay. haddaba ururka dhalinyarada iyo ardayda ogaadeenga oo ah urur u taagan soo bandhigida xasuuqa shacabka Soomaalida ogaadeenga, inkastoo aynan awoodin inaan wada helno dhammaan dadkii bishan Febraayo lagu xasuuqay gudaha ogaadeenga iyo tacadiyadii kala gedisanaa ee bishan ka dhacay gudaha ogaadeenga, haddana waxaynu soo qaadan doonaa inta alla inaga garansiiyo insha Allah. xasuuqa shacabkeena loo geystay ma aha mid ku eg bishan oo keliya, laakiin bil walba waxaa wadankeena ka dhici jiray xasuuq joogto ah. waxaana marna la iloobi doonin xasuuqii magaalada Dhagaxbuur oo loo yaqaano xasuuqii Kanoodiga, kaasoo 60meeyadii ay ciidamada gumaysiga Itoobiya magaalada Dhagaxbuur ku laayeen in ka badan 70 qof oo rayid ah. sidoo kale waxaynan ilaawi doonin xasuuqii bahalnimada ahaa ee sanadihii 60meeyadii degmada Ayshaca ee gobolka City lagu laayay dad shacab ah oo gaadhay ilaa 2,000 oo qof. sidoo kale waxaynan weligeed ilaawi doonin xasuuqii baaxadda weynaa ee boqolaalka qof lagu xasuuqay magaalada Jigjiga. xasuuqan wuxuu ahaa mid si saf ballaaran ah loo leynayay dhammaan dadka magaalada joogay. 6 Febraayo 1994 waa maalintii ay ciidamada gumaysiga Itoobiya bilaabeen xasuuqa iyo surgeynta shacabka Soomaalida ogaadeenga. waa maalintii magaalada Wardheer ay ku jireen gudoomiye ku-xigeenkii magaalada Wardheer marxuun Cabdullaahi Ibraahim Yuusuf Cabdullaahi Geni. marxuun Cabdullaahi Geni wuxuu hor istaagay qorshayaal Itoobiya ku doonaysay inay ku khiyaanayso shacabka. mid ka mid ah qorshayaashaas wuxuu ahaa shir uu gumaysigu doonayay inuu isugu yeedho odayaasha iyo uqaasha dadweynaha laguna qasbo inay taageeraan mowqifka dowladda oo ahaa in shacabku kusii hoos jiro gacanta gumaysiga Itoobiya. 10 Febraayo 1994 ciidamada gumaysiga Itoobiya si waxshinimo ah ugu jireen magaalada Qalaafe marxuum Duulana Xasan Gaabane oo ahaa gudoomiyihii degmada Qalaafe iyo 2 ruux oo shacab ah lana kala oran jiray Cabdi Cali Aadan iyo Diiriye Dhaqare. 12 Febraayo 1994 waxay ciidamada gumaysiga Itoobiya si waxshinimo ah magaalada Qabdaare ugu dileen gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii marxuum Maxamed Cumar Tube iyo marxuum Deeq Maxamuud Carab. waxaa dilka labada mas'uul ka sii foolxumaatay inta meydkooda oo ay ciidamadu ehelka iyo dadweynihii kaleba u diideen inay xabaalaan. arrintan waxay noqotay wax ku cusub taariikhda kana soo horjeeda xeerarka caalamiga iyo garashada caqliga fayow. isla 12 Febraayo 1994 waxaa kaloo ciidamada gumaysiga Itoobiya magaalada Dhagaxbuur ku dileen marxuum Mahad Muuse Ibraahim iyo marxuum Deeq Yuusuf Kaariye oo Deeq oo ahaa qoraagii joornaalka loo odhan jiray Sheeko iyo Shaahid. 30 May 1994 waxay ahayd habeenkii ay ciidamada gumaysiga Itoobiya gurigiisa kala baxeen ugaas Miraad ugaas Leyli ilaa iyo maantana aan war laga haynin nolol iyo geeri toona, laakiin lagu xukmiyay in la dilay. 25 Febraayo sanadkii 1995 waxaa magaalada Qabri Bayax oo ka tirsan gobolka Faafan ka dhacay xasuuq aad u naxdin badnaa oo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya xilli habeennimo ku geysteen. 23 Febraayo 1994 waxay ciidamada gumaysiga Itoobiya gurigiisa oo ahaa gudaha Dhagaxbuur kala baxeen marxuum Mukhtaar Gadweyne isagoo ay ku hortoogteen xaaskiisa Xaliime Haybe Maxamuud. isla habeenkaas waxay kaloo si foolxun isla u dileen Dhuusiyaad. sidoo kale waxay isla xilligaas dileen nin magaciisa la igu sheegay Taagwaa. waxay sidoo kale si waxshinimo ah ugu dileen isla magaalada Dhagaxbuur nin la igu sheegay in Axmed Nuur oo ahaa macallin bare dugsiga hoose dhexe Dhagaxbuur. sidoo kale waxay nolol ku toogteen gudoomiyihii gobolka Dhagaxbuur marxuum Bulbul oo ilaa hadda aan lahayn geeri iyo nolol midnaba. 24 Febraayo 1994 waa bishii magaalada Wardheer lagu xasuuqay dad kor u dhaafay 50 ruux kuwaasoo dhammaantood ahaa shacab birmageyda ah. xasuuqan ayaa wuxuu dhacay kadib markii ciidamada Itoobiya amar lagu siiyay inay joojiyaan banaanbax ay dhigayeen dad shacab ah. ciidamada gumaysiga Itoobiya waxaa amar lagu siiyay inay joojiyaan banaanbaxa isla markaana soo qabtaan gudoomiyihii oo nalif geeri ama nolol. ciidamada Itoobiya oo ku hubeysan hub culus ayaa soo weeraray wafdigii Jawxo oo uu ku jiray gudoomiyaha ururka, waxayna shacabkii Wardheer maalintaas si geesinimo iyo wadaninimo u difaaceen sharaftii ummadeena iyagoo qabjabiyay ciidamada xoogga badnaa ee Itoobiya kana hor istaagay inay gacanta ku dhigaan gudoomiyaha Jawxo Naftuhure Sheekh Ibraahim Cabdallah Maxamed Naax. waxaynan marnaba ilaawi doonin xasuuqii magaalada Qabri Dahar 15 November 2005 oo in ka badan 25 wiil oo dhalinyaro ah si bareer ah ay ciidamada gumaysiga Itoobiya xabad nool ula dhaceen. maalintani waxay ehel la tahay sumada taariikhda la wadaagtaa maalmo kale oo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya xasuuq bahalnimo ah ka geysteen maalmo kale oo kamid ah dalka Ogaadeniya.
qaar ka mid ah magacyadooda ayaan rabaa inaan maanta halkan kusoo gudbiyo si ay xasuusta qalbigeena ugu jiraan. waxaana mujaahidiintaas ka mid ahaa cabdulaahi axmed aaqib, cabdulaahi gaani cali, cabdicasiis maxamed, cabdulaahi axmed maxamed, yuusuf maxamed aadan, asad maxamed cabdulaahi, baashi maxamed xasan, maxamed maxamuud, cabdiraxmaan haraad alcaki, geesh alaar, anwar sheekh, carab garwaax, aamiin maxamed cabdulaahi, siyaad argaax, baashi xasan, raaga mucalim iyo cabdiweli. 8 ama 9 Febraayo 2005 gobolka Shabeelle gaar ahaan magaalooyinka kale ah Beer Caano, Ceelweyne iyo Haraawe waxaa lagu xasuuqay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. dhammaan dadka magaalooyinkaas lagu xasuuqay ayaa meydkooda waxaa la isugu keenay garoonka magaalada Goday, iyadoo dadkii magaalada murugo iyo ciil ay ku reebtay arrintaasi. xasuuqa caynkan oo kale ah ayaa dhaqan u ah gumaysiga Itoobiya, waana caadadooda inay dad shacab ah oo waxba galabsanin la'ayaan kadibna in la aaso u diidaan. 5 Febraayo 2010 maalin Jimco ah ayaa tuulada Malaqa ee ka tirsan degmada Galjoolna lagu xasuuqay dad shacab ah oo isugu jiray odayaal, dhalinyaro, haween uur leh iyo ciyaal maati ah. 83 ruux oo isku goob lagu xasuuqay ayaa 5 ruux oo kamid ah lagu dilay dhagax. 5 qof ee dhagaxa lagu dilay oo magacyadooda helay ayaa kala ahaa Cabdi Mustafa Ibrahim oo 45 sano jir ahaa, Cabdulaahi oo Cumar Xirsi oo 50 jir ahaa, Cabdiqaadir Mustafa Ibrahim oo ay marxuumka koowaad walaalo ahaayeen isna daadiisa waxaa lagu sheegay 50 sano, Cabdi Axmed Ibrahim oo 18 jir ahaa, Mustafa Ibrahim askar oo ahaa aabaha dhalay Cabdi Mustafa oo kor kusoo sheegnay iyo Cabdiqaadir Mustafa kaasoo isna jiray 80 sano. xasuuqii qorile dadkii shacabka ahaa waxaa loo dilay si bini-aadanimada ka baxsan. dadkii baabuur ciidan oo uraalaah ayaa lagu guray magaalada markay waxoogaa dhaafeen. intaa mid loo qabto oo baabuurka ordaya lagu tuuro ayaa baas lagu furayay. qaarna inta ay qoorta laga xidho ayaa baabuurkii oo ordaya laga soo laalaadinayay ilaa laga ceejiyo oo ay naftu ka baxdo. dadkaas oo dhammaantood shacab wada ahaa waxay isugu jireen dumar, ciyaal, odayaal iyo dhalinyaro aan waxba galabsanin. sidoo kale waxaa isla tuulada Qorile sanadkii 2002 ka dhacay xasuuq aad u murugo badnaa kaasoo ay askarta cadawga ah ee gumaysiga Itoobiya ku dileen dad shacab ah oo gaaray 20 qof. waxay dadkaygu weligood xasuusnaan doonaan xasuuqii ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen tuuladii Juri ee nawaaxiga gobolka Jarar oo ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ciidamada Itoobiya ku dileen. waxaa maankeena ka bixi doona xasuuqii bahalnimada ah ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen 22 February 2012 degmada Xamar ee gobolka Erar. dadkii shacabka ah ee magaalada Xabaro lagu laayay waxaa ka mid ahaa Dahab Shariif Axmed oo xaamilo 9 bilood ahayd, Bashiir Budul oo wiil yar oo sabi ahaa, Cabdi Yare oo isna ilmo yar oo dhalaan ahaa, Maxamed Kaahiye Ciise oo ilmo yar oo sabi ahaa. muddo yar kadib waxaa isla Xamaro mar kale lagu xasuuqay dad badan oo ay ka mid ahaayeen Sabaad Maxmed Cadde oo markaas aroos ahayd, Maar Maxamed Nuur oo gabar yar ahayd, Sawda Cabdi Garaad oo markaas umul ahayd, Faadime Axmed Qolombi. waxayna dadkaygu marnaba iloobi doonaan xasuuqii bahalnimada ahaa ee ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka fuliyeen tuulada Baase ee gobolka Doolo. dadkaas oo laayay oo ka koobnaa 10 qof oo rayid ah. waxay dadkaygu maanka ku hayn doonaan xasuuqyadii Shilaabo, Dhagax Madow iyo meelo kale oo Ogaadenya ka mid ah. waxaa marnaba qulubta shacabka Ogaadenya ka baxaynin xasuuqii ka dhacay degmada Gunagado sanadkii lagu laayay dad shacab ah oo kor u dhaafay ilaa 30 qof. waxaa magacyadooda helnay Caaqil Cabdikaafi Xasan Nuur 60 jir ahaa, ina Cabdikaafi Xasan Nuur iyo xaaskiisa ina Wacdi Siraad, ina Cabdi Qodax. isla magaalada Gunagado waxaa xilli habeenimo ah guryahoodii lagala baxay marxuum Cabdiqaadir Guleed Fooley iyo Khadar Cabdulaahi Ibrahim oo ahaa odayaasha magaalada Gunagado, halkaas oo lagu dilay duleedka degmada Gunagado. labadan oday ayaa la dilay xilli ay xaasaskoodu si bareer ah u daawanayeen dilkooda. waxaynu qalbiga ku hayn doonaa oo ay weligeed iloobi doonin xasuuqii 2011 ka dhacay degmada Boodaley Galadiid oo ka tirsan gobolka Qoraxay. magacyada dadka halkaas lagu xasuuqay waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Cali Barre oo ay tuulada dhexdeeda ku dhex toogteen, Faadime Feetin oo inta aysan dilin ka hor iyada oo nool jidhkeeda ay sakiin ku jeexjeexeen kadibna ku shubeen khadda bayteriga tooshka markay dhowr beri silcinayeen sidaas ku naf baxday. Cabdi Maxmed Faarax oo ay isna xabad ku dhufteen tuulada dhexdeeda xilli habeen ah.
suubaan waxay kula tageen gaari inta ay dhexda sii socdeenna inta silib ku marijiyeen ayay magaalada Qabridahar dhexdeeda ku tuureen isagoo meyd ah. suubaan iyo cabdixakiim maxamed dhicis wiilkan isla gaari ayay kula tageen kadibna intay marijiyeen ayay meel baadiya tuulada Wajawaajo ku tuureen isagoo meyd ah. waxaynan marnaba iloobi doonin oo aynu maanka ku hayn doonaa xasuuqii argagaxa badnaa ee ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen magaalada Gaashaamo iyo nawaaxigeeda sanadkii 2012. isku soo wada duuba bishii Febraayo taariikhdaas ayay kordhisay waxayna shacabka Soomaalida ogaadeen xusuusnaan bishan iyadoo ah bil murugo wuxuuna ururku u aqoonsaday in bishii Febraayo ay tahay bishii xasuuqa ogaadeen iyo weliba maalinta 22 bishan. dhinaca kale bishan waxay u taagan tahay halgan xaqa dirir ah maadaama dadweynaha Soomaalida ogaadeen u taagan yihiin inay gumaysiga madow iska dulqaadaan dib walbana u adkaystaan. dhacdooyinka waxay leeyihiin xasuus murugo oo ku suntay qalbiyadeena. dhinaca kale waxay mudan yihiin xusuus huban farxad iyo faan marka laga eego sida dadweynuhu ugu istaageen xaqooda una qabjabiyeen ciidamada xoogga badnaa ee Itoobiya iyagoo difaacay madaxdoodii iyo sharaftoodii ummadeed. waxay noqotay arrin lagu faani karo taariikhdana gashay sidii dadweynaha reer Wardheer oo aan haysanin hub u dhigma kii ay wateen ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo sida ay u difaaceen magaalada iyo madaxdii ummadeena. inkastoo dad rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen haddana waxay mudan tahay maalintaas xusuus gaara